wasiiradii ugu liitay xukuumaddii ugu liitay loo magacaabo bariga Burco marka wasiirada isku deegaanka tiima sheegaysa wasiiradan isku deegaanka nahay sheegay anigu kuwa kale arintani waxay tilmaamaysaa dawladda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi degmadana horta waa degmad jid ku taala wadana culayska saaran yahay waa degmada aan baahiyaha asaasiga ah lahayn gaari boolis male mid hadda laba isku rogo male dhakhtarkii weynaa ee caafimaadka dabaysha qaaday weli mas'uul xukuumadda ka tirsan oo soo booqday ma jiro mid ka hadlayna ma jiro waxay tilmaamaysaa inaanay matalaad rasmi lahayn degmadan iyo gobolkan madaxweyne waxay tilmaamaysaa inaanay matalaad rasmi lahayn degmadana waa degmadii madaxweyne laga doortay waa dawladii kulmiye ka helay 4 cod inta kale ahaayeen ka hayo wadani waxaan leenahay si degdeg ah waa inaad uga soo jawaabtaa xukuumadda iyo wasiiradaada arinta og horena waan uga hadalnay hadda waan ka hadlaynaa waa in matalaadii rasmiga ahayd ee deegaankan waa in la helaa qolada aad u soo magacawday maanta gobolka ku abtirsataana waxa ay ku soo darsadeen ma jiro waayo booqasho xitaa uma soo tacsiyeedeen bal waxay leeyihiin maxaa looga hadlay TV-ga ama loo maagayaa looga hadlaya ayaa maqlaya wariyaal la maagayo oo ka hadlay xaaladdan taagan oo baahiyahan baahiyay oo loo hanjabayo la leeyahay maxaad u tiri arrintaasina waa arrimahaaynu isbeddelka ka dooranay waa ismaal mas'alka u baahan arrintan og weyn si degdeg looga soo jawaabaa waa arrin magaalo jid ku taala waa magaalo xasaasi ah arrinta madaxweyne maanta waan ku sheegnay jawaabteedana waa ka sugaynaa haddii la waayana jawaabteeda kala bixinayna nahay waa jiida hore Suldaan Maxamed Layn Suldaan soo dhawow bal nooga waran xaaladda guud maadaama jiidii hore oo ku sugannahay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciid mubaarak وعن تعامل بالخير لما وهم بلينا شعبك جمهورية السومالان وحنوها للمسلمين تميل كستي كعيدين وحنوهم بلينا يا ضدك مسلمين تمانتا كعيدة يا حرمك إلهي وحنو كبرينا إنه عمل كذا نسيه خير كذا إنه ما إلهي أنتو جندي سكورة بينا جيله أنت كبعد هذه أدبار هو نكسن هاي halkan aan ku qabanaynaa waa degmada og waxa weeyaan degmadii ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ugu badna degan yahay waa jid xasaasi oo xaaladeedu maanta ay ku taalo xuduudda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay aad iyo aad baa loogu wanaagsan yahay si fiican waa loogu ciiday bashbashiyo barwaaqo anigu waxaan ka mid ahaa gudidii daadajinta nabadeynta degmada Ceelfayn iyo Darar Weyne oo muddo 3 bilood aan halka ku sugnayn xaaladaas aad iyo aad bay wacnayd nabadgelyadana taan bay ahayd aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa dadkii ka soo shaqeeyay nabadgelyada ee juhdiga geliyay oo uu ku yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Aw Cali Aw Cabdi iyo gudidii labada beelood ee Garxaajis Habar Jeclo iyo gudidii daadajinta nabadeynta oo maanta Ceelfayn ku ciidaya 9 sanadood kadib waa maalintii koowaad ee lagu wada ciido dadka degan Ceelfayn iyo Darar Weyne ay ku wada ciidaan goob oo nabadgelyo ay ku wada ciidaan Ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu siyaadiyo imikana anagu waan soo ciid tagnay muddada aanu joogaynaana kulley ma muddo 3 bilood ah ragii kale iyo gudidii kalena way ku maqan yihiin annana waan ku noqonaynaa bacdaliid haddii Ilaahay ka dhigo boqol reer ayaa ku guriyo beelay ilaa haddana wax xukuumadda wax jawaab lagama hayo halkan jawaabtaas su'aasha aniga uga faa'iideysanaya xukuumadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi waxaan ugu baaqaynaa inaanay matalaadii helin gobolka ee ku matalayay wasiiradiisa ku matalayay guud ahaan markaan eego bariga Burco xul maaha xal waa xal wasiirada uu magacaabay madaxweynuhu waa intaan garanayo waxa weeyaan dadkii ugu liitay waa wasiiradii ugu liitay xukuumaddii ugu liitay loo magacaabo bariga Burco marka wasiirada isku deegaanka tiima sheegaysa wasiiradan isku deegaanka nahay sheegay anigu kuwa kale aad uma garanayo laakiin inkastoo iyaga laftooda ay wax walba leeyihiin laakiin bariga Burco xaaladana waxay ka dhacday degmada og
waxay ku dhacday dad maataa ilaa muddada iminka xukuumaddu jirtayna weli wasiir soo baaqday degmadan waa degmada ugu deegaanka badan ee ugu mujtamaca badan waa degmadii laga doortay dowladda waa degmadii kulmiya ka helay 35 cod ee keliya ilaa haddadan xukuumaddu iyo kormeer yimi iyo cid xaaladda degmadan ka war haysa iyo baahiyaha yaalla oo keliyana ma joogaan ilaa Caynaba ayay ku sugan yihiin wixii loo iska saareen ma jiro marka waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland haddeer waxyaabaha soo kordhay waxa kamid ah wasiir dalkoo dhan wasiiru ah koone ilaa koone oo koodhanaya wasiirka deegaankan ay wasiir deegaan baan sidii golo deegaan oo kale oo aan u dhignayn inuu yahay dalkoo dhan wasiiru yahay toddobada bil imika inta ay jirtay xukuumaddan cusubay weli ciidamo soo boqon degmadan wasiir soo boqday ma jiro wasiir xaaladeeda la socdaa ma jiro agaasimo yimi ma jiro dhibaatada maanta ka dhacday degmada og cid soo boqotay ma jirto waxaanu baaq ugu diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne aad iyo aad baad kugu mahadcelinaynaa sida aad u wado dawladda aad iyo aad bay wacan tahay safaradaadii aad baxdayna way guuleysteen kulligood ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu kugu sii wado waanu ku garab taagannahay laakiin dadka xilka u magacaabayso ha noqdaan dad xula ayaan oran lahaa fariintaasuna dirayaa horena waanu gala hadlay madaxweynaha anugu waayo waxaa loo baahan yahay dadka xilka qaadaya inay dadka dhexdhexaad u ah dhammaan gobolka ka war haya dadka isku kaxayn karaya inay yihiin ee aan ahayn dad qoys u ah wasiir waxa badan wasiir xil haya oo dalkoo dhan wasiiru ah oo qoys ama deegaan kooban xidhiidh la leh waxaa kuu caddaynaysaa ma jiro cid soo boqotay degmada og xaaladaha ka taagan waa magaalada keliya Soomaaliland ku taale aan dawlad hoose lahayn dawladda hoose magaalada xitaa marka lagu daro gobolka Sool ee naga tagay ee ay maanta gacanteena ka baxay waa magaalada aan lahayn xaruntii dawladda hoose waxay ku degay gaari ambalaas ma leh iskoroga ma leh gaarigii booliska ma leh waana degmada ugu ciidanka ugu badan ee jamhuuriyadda Soomaaliland yaallo waa degmad xasaasiya waa degmad jiid ku taala intaasoo dhan bay ka maran tahay arrintaas aynu ga fiilo muuqataa sababtoo ah wax cadayna mar haddaan ahayn damaag iyo bareer baan u arkiyey sababtoo ah gudoomiyaha gobolka Togdheer Soomo bandhiga wax cadaynaya inay ka dambeeyeen labada mas'uul oo magacaabay waan arkiyey Maxamuud Xaashi iyo Maxamed Kaahin haween qofku ninka weyn markuu wax sheegay inuu wax cad sheega waan laakiin aad mal awaal qof iskaga maaqta waa khalad waliba mas'uula arrintaas gaf baan u arkiyey arrintaana waxaan leeyahay barasaabka gobolka Togdheer xaal iyo boljiisa ka bixiyo